best sweet potato forever والله هذين waxaan kugu la talin lahaa saan oo kale inaa usub sitid haduu ku dhadhami waayo markino aniga suraad aniga ka masuul asxaabta waa salaamantiin saaxiibkii Marooli Masal waaye aad iyo aad idin salaama meel walba adduunka ka joogtaan marka hore waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo taageerada videoga aad taageerteen ama channelka aad taageerteen aad iyo aad u mahadsantihiin maanta waxaan rabaa video inaan ka soo biyo sida raashinka loo diyaarsado sida 2 maalin ama 3 maalin raashin loo diyaarsado taas rabaa video inaan ka soo biyo marka raashin diyaarsi laga hadlaayo laba arimood ay dadka inta badan ay ka qeyliyaan ama ay ka cabaadaan sababtu waxay dhahaan maxay sheeg raashinka lacagtiisa qaali waaye ama waqtigan ugu yar raashin ma soobsan karno maanta waxaa idin tusinaa sida ugu raqiisan uguna fudud waqti yarna uu kaaga baxayo oo raashin loo diyaarsado waxaa idin tusinaa waxa aniga maanta raashinka aan ka soobsanay adiga waxa rabtaa ka soobsan kartaa halkan waxaa ugu jira bataati macaan waa wax ugu raqiisan waay xataa haddii aad ku nooshahay Soomaaliya bataati macaanka lacag badan kama joogo meesha waxaa ugu jira chicken breast meesha waxaa ugu jira hilib lo oo la shiiday dufankiisana uu yahay 10% bariis basmati iyo cagaarkan Brussels sheek hadda waa jartay bataatiga waa jartay chickenkana waa jartay aniga bataatiga saana jartaa markaan jarta kadib markino caraftaana korka uga daraa chickenkana saana u jartaa sababta gobol kariiska ugu dhigo waxay tahay markaan foornada ay galiyo dhaqso ayuu bislaanaa markaan jar kadib caraftaana korka uga daraa waxay lisaan isku walaaqa si carafta meel walba ay u gaarto wali baan ku daraa inta way ku filan tahay markaas kadib foornadaan gelinaa bataatiga asigana foornadaan gelinaa 20 daqiiqo qaadanaya inta uu ka bislaanayo markaan gashtay maxay ii sheeg mataqaana bataatiga iyo chickenka foornada 20 daqiiqo ay qaadanaysaa inta ka bislaanayo inta iga sii bislaanayaan waxaan diyaar ka sii dhiganaa bariiska hilibka looda iyo qudaarta ani bariiska saana u suubiyaa maxay ii sheeg marka hore digsiga waxay kululeeyaa markaan kululeeyo kadib waxaan ku shubaa bariiskan ku shubaa bariiska markaan ku shubo kadib waxay riisoo carafa mataqaana ayaan korka uga daraa carafta markaan korka uga daro waxay riisaan walaaqa markaan walaaqa kadib biyo kulul oo halkan igu diyaarsanaan korka uga shubaa si uu dhaqso igu bislaado markaas kadib maxay ii sheeg mataqaana waxaan qudaarta si suubsanaa waqti hadda qudaarta aan isticmaalaa Brussels sprouts qasama adiga kanoo kale inaa isticmaashada cagaar oo dhan isku dhow yahay ama isku mid waaye sababta uu isticmaalayo cagaarkan waxaad ka helaysaa calcium badan iyo fiber badan biyo kulul asna xitaa korka uga shubaa sababta biyaha kulul korka uga shubaayo waxay tahay waxaan rabaa dhaqso inuu diyaar ugu noqdo marka asiga diyaar ka dhigto haddana waxaan sii suubinaa hilibka loo suubinaa daawaha waxay riisu kuleel yahay markaas kadib saliid aad u yar korka uga shubaa daawaha ku shubaa markaas kadib hilibkan ku shubaa asxaabta soo jeedaan raashinka waan diyaarsaday intaan cabirka bilaabay laba shay oo muhiim ah rabaa inaan idin sheego shayga koowaad waa caagagan oo raashinka lagu keediyo muhiim waa inaad haysatid sababtoo ay waqti badan way ku safe gareynayaan
waxayna kaloo kaa ilaalinayaan wax qashin inaad cuntid sababtoo ah markuu filinjeerka raashin kuugu jiro mataqaanaa wax kale ma cunaysid raashinka filinjeer kuugu jiro ayaad cunaysaa talabaad waa miisaan qasab waaye waxaa cunaysa inaad miisaantid haddii aad rabtid inaad muruq dhistid sababtoo waa inaad og tahay waxaa jirkaaga soo galaayo hadda waxaan tusinaa maxay ii sheeg sida uu cabiranayo raashinkii diyaar uu yahay weelashaan aan ku shubtay meeshaan waxaan ku shubanaa 200 gram chicken breast siraan ka dhigaa iyo 200 gram oo maxay ii sheeg mataqaanaa sweet potatoes markaas kadib waxay ii sheeg wax yar soo cagaar aan ku shubnaa ana cagaarka ma cabiro because cagaarka calorie ku jiro ma badna muhiim waa cagaarka hadda Soomaaliya joogto mataqaanaa waxaad cuni kartaa koostada Soomaaliya raqiis ay ka tahay calcium kugu filan iyo fiber kugu filan baad ka helaysaa asxaabta maxay ii sheeg cagan raashinka ku jiro waa 520 kilo calorie waaye waxa ku jirto 45 gram oo carbs waxa ku jirto 55 gram oo maxay ii sheeg mataqaanaa protein iyo 14 gram oo fat saxanka inta leeg asxaabtaas oo jeedaan raashinka wala cabirtay cagagan ku shubtay meesha waxa igu jiro 3 maalin raashinkooda laakiin quraacdu kuma jirto meesha quraacdu gooniyan u subsadaa maxay ii sheeg mataqaanaa asxaabta hadda channelkan ku cusubtihiin maxay ii sheeg mataqaanaa ama wadi subscribe hin ama wax ka faa'iiday subscribe asxaabtaadana u share garay haddii videogan uu likes badan helo oo subscribe badan helo oo views badan helo videogan video ku xigo waxaan ka suubinaa video sida loo xisaabo kilo caloriga asxaabta channelka taageerteen aad iyo aad u mahadsantihiin waa kana aniga raashinkayga saan hadda u diyaarsaday adigana saan oo kale inaad u diyaarsataa rajayna of course inaad dhadhamiyo waay best sweet potato forever wallahi adina waxaan kugula talin lahaa saan oo kale inaad u subsatid hadduu kuu dhadhami waayo markino aniga suraad aniga ka masuule videogan video ku xiga noo balan mahadsanidin